بسم الله الرحمن الرحيم. عاو waxaan ku soo booqanay boqor Cawil Xasan ku magac dheer boqor Cirmadow xaalado degdeg ah oo ka soo cusboonaaday magaalada Ceelafweyn bal waxaan doonaynaa inaan ka wareysano xaaladaha waxa uu ka og yahay iyo xiriir inuu la yeeshay ku soo dhaw boqor waan dhawahay cabdi waxaan salaamayaa ummadda islaamka ama ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Somaliland waxaan ku salaamay salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu boqor waxaa jirta warar degdeg oo mar dhawatana soo gaaray oo sheegaya in ciidamadii jabhadda ahaa ee joogay gobolka bari qardho inay soo gaadheen magaalada Ceelafweyn halkaas ay rasaas badan ay ka dhacday dhaawac badan iyo la sheegay in dhimasho jirto arrimaha wax warama ka haysan ma kala socota adigu cabdi waxaan ahay waad garanaysaa waxaan ahay boqorka beesha garxajis odayaasha u taliya ay talada ku gooda gustameedka abaanay waan ka warhayaa ciidamada xaquudirirka Somaliland ee Soomaaliyeed ee sharcaar iyo baaxad wato markii u adkaysan waayeen dhibaatada ka taagan dowlad goboleedka Somaliland ka taagan ee soo noqnoqotay ee ninkii lahaa degta qorigu hayfro laba doolma degta qorigu hayfro ninkii lahaa maanta uu madaxweyne ka noqday iyadoo ay sababayso gaashaanbuur ama jeegaan sababteedu jeclaysiya oo cilaska haysmayo ay sababtay in ninkii lahaa degta qorigu hayfro anigoo hadii kala duca qaadan maayo shay lahaa ee maatada gumaadayay ee ciidamada soo gelinayay marka uu maanta madaxweyne laga dhigay waxa aanoo beesha boqorka raajista aanu cilaaminay in laga diriro mar labaad oo laga kaco oo ciidamada xaquudirirka Soomaaliyeed ka kacaan uu sharcaar wato iyo baaxad waanay ka kaceen waanay soo galeen Ceelafweyn khasaare aad u ballaaran ciidanka qaranka way gaarsiiyeen isku sheega way gaarsiiyeen waxaan sabaaq u diraya waxa la waa beero waxa la wixii beesha garxajis kaga jira ciidamada inay ku fiiraan ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaan kuu sheegayaa markii Afweyn la dagaalamayay kaligii taliyay Maxamed Siyaad Barre inta boqolaal kun oo korneyl ama saraakiil reer ay kaga dhimatay Somaliland ay kaga dhimatay waxa jira beesha garxajis oo Allah iyo ballan Sacuudiga bari saciida galamaha waa aniga ninka ku baaqi kara Soomaaliyeed ninka ku baaqi kara Somaliland waa aniga ka soo dhintay waa aniga ka yeeli kara waa aniga mar haddii ay noqotay kiisha maatada gumaadayay caqadan ma degta qorigu ay furakiisha ay talaha maana dalka soo gaaray waxaan ku sheegay inaan beesha garxajis tahay inaan bari ilaa galbeed lagu tago inaan baawarka ugu weynahay inaan waxaan doonaan samayn karo dowladii Maxamed Siyaad Barre ka taliyay raggiisa baan ka mid ahaa waxaan nagaga dhintay oo beesha garxajis markaan kuu sheegay nagaga dhintay kumayaal saraakiila waa la qirsan beel quro isaaq ay kaga dhimatay ma jirto intay kaga dhimatay waay tanna maanta waanaan doonayn waxaanu ku celinaynaa midnimadii Soomaaliyeed waxaan marka hore islam ka bilaabantay in midnimada Soomaaliyeed jirto tiibaanu wadnaa tiibaanu isu geenaynaa waxaanu sheegayaa ninka lagu yiraahdo farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxaanu leenahay in bilaba Somaliland raadinaysay haddaanu gacanta kugu haynaa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed halkaas aanu saaro jalcaariyo iyo baaxad weeyaan wali maanta ما صوبوقن ساد ciidanka ma siinin cid u tagtay ma jirto iyo ra'iisul wasaaraha cid u ambaliyay ma jirto cid u qortay mushaharkii ma jirto cid rajadiisa ma jirto waana ciidanka qaranka Soomaaliyeed midnimada raadinaysa aan raadiyay waana bartaan dhigay way si degdeg ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed uga kacaan oo si degdeg ah saaradii military iyo saayidii military iyo xoojintiiba loo siiya waxaan halka ma lagu ururiyaa dhaqaalaha oo uga dira waxaan uqaasha Somaliland oo gobol Puntland iyo Somaliland waxa gobol dalgolood bay sameeysan waa qaybteedii waanu sameeyay ciidanka qaranka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed oo raacsana waa intii uqaashu lahayd ka hela online ka hela waa intii qaranka awdiisa lahayd ka hela waraysan wasaare Allah way si degdeg uga soo jawaabaan kliibkayga waxaa jirta aad baad ugu dheeraatay waxaa jirta in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu joogo caawa magaalada Burco isagoo ku sii jeeda dhinaca bariga iyo gobolada Sanaag maxaad isaga fari lahayd aad u sheegi lahayd wallahi waxa weeyaan ku sii jeed ma waxa weeyaan waa hooyo dhibaato waxaan ugu fari lahaa isaga inuu halkaa u taagay isku asiro wali sharaf oo laaban inuu halkaa u taagay isku asiro waa asir waay tagto qorigo faradiiba mudaamoodi wax ku qabanaya bal ku qabta ku dalka xoreeyay waxa weey beesha garxajis waa Allah iyo ballan
nimanka ciidamada socda wuxuu habluus ciidan galama ilaa hargeysa ilaa berbera ilaa bro ilaa ceergaamo ilaa laascaanood ilaa geeska u dambeeya ninka degan waa aniga ninka wax ka qabtaana waa aniga ninka Soomaaliyeed ku dari karana waa aniga ninka inta Soomaaliyeed doonayay inuu runiyo waa aniga markaan ka dagaalamayay takaliisalsiisal bare de waxay ahayd saal musum waxa allaala wixii maanta la boobiyo xalaqaysmi aan ka dhidhiyo koronayda ku dhimanay war maanta hadduu ilaahay digta qoriga hay furo maanta digta qoriga hay furo ku fuulay midnimada Soomaaliyeed baa raadinayna si degdeg soo casir baa leenay qaranka Soomaaliyeed baa loo hambalyeynaa farmaajo loo hambalyeynaa cadkeygii uqaaleed haddana aniga hay'adda uqaasha kala Suudaan Maxamed kamid yahay ee aan hawsha ku wadno u yahay waynu cadkeygii meel iska dhiga ciidamada si degdeg taakuladii iyo saadkii ciidan iyo darajadii loo siiyo waxaad sheegtay boqor hadalka ku jira in ciidamada caare iyo jabhadda halka ku sugan aad dhaqaalahooda wax ka bixiso caawa markii la soo sheegay in dagaal halka ka dhaceen ama ceelfayn qalaasaas uu ka dhacay wax xiriir ma la sameysay caare wala sameeyay saacad ka hor baan lahalay sayay baa ku dhadhaxda waxay sheegeen inay guul taagan yihiin mar walba waan wada hadalnaa waana soconaysaa inta midnimada Soomaaliyeed leelayo inta ay ciidanka qaranka Soomaaliyeed awoodoodina soo siinayaan inta ay Soomaaliya mid qula noqonayso taasaan wadnaa taasaan u taaganay ninna ka haybadaysan ninka ku dhawaaq karana waa aniga saacad haddaynu joogno iyadoo ay tahay warkani gabagabo maxaad isaga fari lahayd korneel caare xagiisa hadda uu ku sugan yahay wuxuu ku sugan yahay magaalada lagu yiraahdo ceelafweyn ciidanku uu haystaa ciidanka qaranka isku sheegaana qasaaro ballaaran baa soo gaalo dib ay uga baxeen saan imika ognahay tiknika iyo ragba waa laga hayaa qasaaro wixii dambena dib aynu kasoo sheegi doonaa say iguba ii sheegeen midnimada Soomaaliyeed baan raadinaynaa farmaajo iyo waa fariinteeda ku socdaa iyo ninka lagu yiraahdo ra'iisul wasaaraha labadaba waxaan u sheegayaa inay si degdeg ah ciidamada qaranka Soomaaliyeed sanadii military sitaan halka u saaray inay si degdeg ah taakuladii ciidan iyo sanadii military ugu doonsiiyeen marka barayna aad iyo aad baad boqor Cawil Xasan u mahadsan tahay aad iyo aadna waan ku salaaminaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh